السلام ورحمة الله Soomaaliyeey informationna oo carabta ku saabsan baa rabaa inaan kaga sheekeeyo علشان saa u aragtaan مثلا carabta مثلا yaa sameeyay halkee ka yimaadeen way Soomaalida loo yiraahdaa carab baa tihiin part 1 way kan I don't know maybe video wana inuu dheeraado but daawada because information oo hadda ka hor ay Soomaalidu ay sheegeen ama media مثلا waxa laga yaabaa dadka badankood carabaha ma joogin ma kala garanayn marka information aniga qaata carabta horta waxay u kala baxdaa saddex waxa la yiraahdaa carab baa'ida carab caariba wa carab musta'raba carab baa'ida waxa la yiraahdaa waa carabtii baa'ida dhamaatay ama khalaas yani ma jiraan maanta waxa kamid ah qowm aad thamud iyo qowm salih kuwaasna khalaas ilaahay baa haligay hatta nasl iyo dhurriyad male taas waa carab baa'ida midka labaad waxa weeye carab caariba waxay yiraahdaan carabta oo carab dhab ah badankoodna dadkan jasiiradda carabtii ka yimaadeen carabta dhabta ah okay taas waa carabka number 2 number 3 waxa weeye carab musta'raba yani waxa weeye carab carabowday laakiin asal ahaan carab ma ahayn yaa saasa waxa kamid ah مثلا ايشيك اللهم صل على النبي dadka maanta la leeyahay quraysh oo kale waxa weeye carab musta'raba yani waa carab carabowday because quraysh nasligoodu wuxuu ka yimid ismaaciil alayhi salaam ibraahim markuu keenay haajar makka qof deganaa male hadhowna qabiilad waxa jirto yemeniya la oran jiray jurhum baabaar kadib yani u soo guuray gabar bay marka jurhum siiyeen ismaaciil duriyadii halka ka soo baxday quraysh baa loo baxshay حتى عربت قاركود يعني استغفر الله markay doodaan iyo dambiyada galaan waxa weeye waxay ku leeyihiin طبعا ayaga waxay sheegaan ay qof arab xataa weydiin kartaa bas طبعا ma fiicna hadalkaas waxay yiraahdaan nabi maxamed alayhi salatu wasalaam asal ahaan arab ma aha arab musta'rab u aha طبعا hadalkaasna waa khata because ilaahay uu sheegay nabi maxamed arab waa laakiin arab musta'rab waa jirta la socda arabtu waxay ku doodaa yaa arab dhab ah يا عرب دبا marka waxaan mar walba xiraahdaan Yemenka asalka carabta bay badankood sheegtaan bas carabta yani taariikh ahaan asal ahaan waa carabta jasiiradda carabta ka timid yani maanta dadka la yiraahdo khaliijka iyo Yemen kullu jasiiradda carabta todobada dawlad baa asal ahaan oday carab la oran jiray ka soo kacay taariikhiyan carabta inta kalena mesela dadka maanta la yiraahdo Masar Suuriya Iraq Morocco Suudaan intaas oo dhan carab musta'raba weey asal ahaan yani waxa laga yaabaa oday carab ah xagga tagay ama ayagu asal ahaan carab ma ahayn way caraboobe informationaas la socda carabtii baa wadnaa tanna waa part 2 carabta maanta waxa la yiraahdaa waxa weeye 22 dawlad carabtoo dhanna muslim ma aha qaar waxa ku jira oo muslim ahayn oo carabi ku hadla laakiin badankood maanta ma degan jasiiradda carabta wadamo kale ku badan yihiin oo inii sheegi doono islaamka marka la arkay carabta waxay matalaan muslimka 5% bas 5% maanta muslimka majooradka jooga kaliya waa carab inta kale oo dhan 5% waa muslim carab ahayn asal ahaan طبعا muslimka meesha ugu badan yahay waxa weeye Indonesia Hindiya Masar Nigeria wadamadaas Pakistan yasaas iyo Malaysia hatta carabta waxay kala degaan Asia iyo Africa عربت أشياء دكتة ودتك اللي يرهذا بلاد الشام سوريا فلسطين لبنان جوردن عراقنا وقار بلاد الرافدين بري هذا هي جزيرة عربتها وضمها كويت سعودية قطر بحرين إمارات عمان يمن انت وإيشيا وعربت إيشيا دكتوية عربت أفريقيا دكتة وحوية مصر ليبيا السودان تونسيا الجيريا ماروكو بريطانيا انت صنع عربت افريقيا كومباير marka la sameeyo boqolkiiba 85 maanta carabta waxay degaan afrika boqolkiiba 15 kaliya asia dega marka that's why waxa la yiraahdaa carabtu afrika u badan yihiin oo asia ba joogaan oo afrika weeye saasna waa lagu doodaa marmar carabta waxa jirta carab oo dhaba oo carabi ku hadlin for example waxa jirta luqad oo la yiraahdo luqa al-mahriya ولغة jirta oo qadiima laakiin ma la fahmi karo mana la oran karo waa carabi yani carabiga maanta la garanayo waxa ku hadla koonfurta Cumaan dad ah gobollo Yemena soo qatra information baan aan sheegaya dadka lagu leeyahay luqad mahriya marka dad mahri ahayn baa ku hadla asalkooda laakiin mahriga
dadka Soomaaliya la joogo meheriga maanta sheegta waa dadka la yiraahdo Arab Saalaxa waad garanaysaan yani Arab Saalaxa maanta Soomaaliya way joogaan waa meheri arona Arab Saalax maanta jooga inay ku hadli karaan luqadda meheriga qadiimka bas luqadaas af Carabi ma aha mana la fahmi karo waa sida af Soomaaliga kale luqadaha waxa weeye la qorin Soomaaliya because hadda dhow baa la qoray 70-nadii ayaga wali lama qorin waa lagu hadlaa laakiin af Carabiga caadiga rasmiga bay qoraan marka Arab waxa jirta oo Arab dhaba oo asala oo ku hadlin af Carabi Arabtoo dhan Arab maaha yani wadamada Arabtoo dhan wadan 100% Carabi degan yahay ma jirto mar walba in baa ku maqan dad kala had example Iraq iyo Suuriya Lebanon ma waxa la degan kuwa leeyahay Kurdi Ashuri Sharkas waa Ruush Turkmaani waa Turki Masar waxa degta aqbaata oo dadku dadka loogu yimid waxa kada part 3 weeya Arabta ma ogtihiin Arab badan waxa jirta oo tiraahdo annaku Arab ma nihin yaa kamid ah Lebanon qaarkood waxay sheegtaan xadaarad qadiima oo la oran jiray alfaynaqiya wuxuu ku leeyahay annaku ma nihin Arab faynaqi baanahay masaaridoo kale masaari badan baa arkay oo yiraahda annaku Arab ma nihin dadka Morocco dhandaga badankood waxay yiraahdaan Amaziiq baan lahay annaku Arab ma nihin waxa ku soo haray ninka ugu faamosana oo Arabta ka baxay uu yiraahdo anigu Arab ma ahi waxiga galay male wuxuu ahaa madaxweynaha Allah yarxamu Liibiya u tarin jiray Muammar Qaddafi waligiis wuxuu oran jiray markii ugu dambeysay uu dhintay anigu Arab ma ahi Afrika ku biiray oo mar uu bixin jiray Afrikaan حتى شرعيده soo dejiyo waxa kamid ahayd Liibiyiinta naagaha Liibida niman Afrikaana guursada nimanka Liibiyiintana naaga Afrikaana guursada si ay kulligeen Afrikaan dhaba u noqono Arab diid yani meeshu ka ahaa Arabtoo dhanna muslim ma aha saan inii sheegay waxa ku jirta Christian ama Masiixiga dadka yiraahdo waxay degaan Iraq waxay joogaan Morocco qaarkeed Suudaan Masaarida حتى boqolkiiba adigu aad bay u tira badan yihiin marka Masiixiintood حتى waxa lagu tilmaamaa dad tiro badan oo gaaraya ilaa 12 milyan 15 milyan Soomaalida ay la egyihiin حتى يمنta حتى Arabta waxa jirta Arab Yahuuda oo مثلا يمنta kale Yahuud bay leedahay Masar oo kale Suuriya waxa jirta xaafad dhan oo la oran jiray Xaarat Yahuud oo meel gaar ah u xiran bay lahaayeen oo anigu hadda kor aan ka arkay Suurida marka way lahaayeen Iraaqdu Yahuud bay leeyihiin qoladan la yiraahdo Masaarida way leeyihiin Tunisiada way leeyihiin Morocco way leeyihiin laakiin dadkaas hadda way ka baxeen wadankan hadda oo guumeysta Israa'iil yiraahdo bay kulligood u qaxeen oo u guureen oo Carabaha yani ma joogaan waa hore ka tageen adduunkana dawladda oo kaligeeda waxiidka ah oo muslim ah 100% waa laba dawlad waa Soomaaliya iyo Jazir Maldives kan muslimka ah Jazir Maldives diinta waxa geeyay oday Soomaaliya Abu Barakat al-Berberi la oran jiray informationkaasna waxaan ugu haystaa dad Marookaashan waxay amaya waa anaga mana aha ninku waa Soomaali magaalada Berberuna ka baxay min zaman yani information taasna way jirtaa حتى دينيا marka ka hadlayno saxaabo waxa jirtay alayhi nabi Muhammad alayhi salaam oo Arab ahayn asal ahaan sida Salman al-Farisi maanta jinsiyada taasino Farisi buu ahaa yani Iran weeye saxaabi waxa jirta Suhayb la oran jiray Suhayb maanta dab jinsiyada siiyo wuxuu qorayaa aba Talyaani ama Greek Bilal hada maanta jinsiyada la siiyo waa Ethiopian waxa kada yani part 4 weeye Arabti baa wadnay kaliya saxaabo ma aha hatta buugaagta maanta islaamiga jira sida buugaagta al-Bukhari ibn Muslim tafsiir Quraanka cilmiga مثلا علومته هذا اللي برته الجبر يا خوارزمي iyo badankeed iyo nimanka culimada la yaqaano caalamka islaamka ibn Sina iyo dadkaas Arab maaha badankood majority-kooda Arab maaha laakiin علشان buugaagtan Arabi ku qoreen waxa la yiraahdaa waa Arab information khataran Soomaaliya way inii sheegaya do you know maanta dadka inii sheegay oo ah Arabta jasiiradda Arabta sida Arabta مثلا khaliijka Yemanta Suuriya Lebanon Sacuudida Iraq dadkaas oo dhan Falastiin ma yeelaan ina lagu tilmaamay inay yihiin Asian wuu xanaaqaya yimkin inuu kala dagaalo wuxuu kale anigu Asian ma ahay ayagu Asian waxay u yaqaanaan Pakistaanta Hindida Indonesia Philippines ama dadkan dhaha yar oo dhan marka lama yaabo aniga markuu soo baxo qof Soomaali yiraahdo anigu Afrikaan ma ahay because dadka ma ogola Arab nin Sacuudiya ma Yemeniya ma Iraq ku dhashay Asian baa tahay war ma ahay buu ku leeyahay Asian marka arintaasna way jirtaa maanta su'aasha jirta waxa weeye okay Arabtan iyo ururka Arabta yaa sameeyay
halkee bay ka timid fikraddan waxaa keenay ingiriis waagii qarbiga soo galeen wadamadan ay guumaysteen asia ee africa bay dadkan u fakareen waxay yiraahdeen urur caraba baa inii sameynay xataa isku waqti baa la sameeyay ururka carabta iyo United Nationska because dadkan waxay arkeen kullu wada muslim inay yihiin inay hal diin leeyihiin marka waxa la yiri dadkan see loo kala jari lahaa fidmadaha ugu waaweyn ku dhacday dadka badankood carabta inta ilbaxday wadaadada arintaas way ogeen weyna diidaan wax la yiraahdo carab wixii aan ku muslim baan nahay dhibta jirtana waxa weeye ingiriiska fikradaas asaga wataysan inii sheegay laano waa hor aan san inii sheegay badankood caalam sana waxa u tarin jiray turki ingiriiskana markuu yimid arabta wuxuu ugu sheekeeyay sidee nin oo turki ah adinkoo nabi maxamed alayhi salaam oo caraba adoo caraba see u yeeshaan nin turkiya inuu ina xukumo fidmadan halkaas ka bilaamatay min zaman bayna ahayd sidii bay marka carabta cadowna ugu keenay fikrad adinku carab baa tihiin dadka kale lama simnidin sameeysta urur laakiin nin carab intay tashteen ee meel fariisteen ay yiraahdeen kaalaya aan wada wada sameysano carab la yiraahdo waxaas wax ka jira male su'aasha jirta waxa weeye okay Soomaalida maxaa ka galay arintaas oo dhan wayna loogu daray ururka carabta asbaabta keentayna maxay tahay Soomaalidana asal ahaan ma caraba mise ma aha mise waa sida carabtaas oo kale dad isla wada daga su'aashaas oo dhan insha Allah bariba inii soo jawaabaya because maanta wax badan baa duubay همين بين النقطتين so good night تابعونا في الحلقة القادمة إلى اللقاء